عليكم ورحمة الله وبركاته. horta aad ugu faraxsanahay inaad intiinano Soomaaliya aan maanta arko haddana aan ku arko magaalo aan weligay iman oo maanta igu horeyso 4 saacadood ay ugu qaadatay inaan horta safarka halkan inaan soo aado inaan jaahil ka hay waxa kuugu cadeynaysa qaabkan u booking gareysto baska inuu anoo heli kara inaan tareen ama toos soo qaado helo hadda waxay noqotay inaan Luton aan deganahay ka tago London tago haddana soo laabto laakiin wax kasto ay noqoto way istaahishaa marka hore horta sidoo la socotaanba gabadha Zainab baan noo sheegtay inta iyadu ismaanay sheegin marka iyada horta sheegaya Zainab waxa waaye gabar iyadoo daayar bilowday xil iska saartay iyadoo qofna u dirin in ay ka faa'iideysato ayada wixii qabsaday markay caruurta ahayd ee wadanka ku koreysay oo ay weyday buug afkeedii hooyo ku qoran oo akhrisato deetana ayadii xil iska saartay in caruurta kale ee Soomaaliyeed ay u qorto si wixii iyada qabsaday aanay u qabsan marka waa qof shaqo adag isu diray badanaana hadda qorayaasha Soomaaliyeed ma qabno publishers ma dadka qoraalka markaad soo saarto dunida waxa jira system la marsiyo markaad buug qorto buuga waa in laga edit gareeyo waa in laga eego waa in la sheego inuu u qalmayo in kale in bulshada loo bandhigo ka bacdina waxaad helaysaa hay'ad marka inta soo shaqo qabata ka bacdi ku maalgelisa kadibna ku suuq geyso buugii ku daabacda waxaan rabaa inaan idin sheego in aanay qof Soomaali inuu wax qoro sahlanayn maanta waayo burburka nagu dhacay meel walba nagaga dhacay maamuladii wadanka ka jiray hadda tabar uma hayaan inay buugaag iyo dad qora ay hadda ka shaqeeyaan inkastoo waajibkeedu tahay inay dhiiri galiyaan maktabadana sameystaan maktabadahaas buugaag laga buuxiyo fara badan ay u baahan yihiin hase ahaatee waxa meesha weli ka maqan maamul rasmi ah oo iska xil saara maxaytoon buugaagta dadka qorayaasha Soomaalida maskaxdooda ka soo maaxata marka waxaan buugooda arkaysaan oo halkan yaala dhinacan iyo kuwa kale oo badan oo aanu ka gaari weynay oo hadda magaalo ku kala fiirsan adduunka waxa qoray dad iskood isu xil saara lacagtooda jeebkooda iyo biilka ilmahooda galiyay waayo cid ku gelinayso ku soo daabacaysa ma jirto horta halkaas ayay maraysaa ta kale waxaan rabaa inaan wax yar idin kala hadlo muhiimadda afka hooyo ama luqadda Soomaaliga anagoo kulligeen wada og laakiin caruur yar aan dhalnay caruurtaas yar aan dhalnay dhaqanka iyo kuma xirmi karaan inay fahmaan dhaqanka wadan dadkoodii sanjigooda dambe meeshu ka soo jeedo ma fahmi kara anigu ilaa ma oo luqadda barto kulligiin waxaan u maleynaa khibrad gaar ah taas idinka soo gaarto wada ogtihiin waxa waaye in ilmaha la baro luqadda af Soomaaliga luqadiisa afkiisa hooyo mid ay doonto ha noqoto anakeen waa Soomaali waxay xitaa kor u qaadaysaa asaga qalbigiisa iyo niyadiisa iyo waxbarashada kale inuu ku fiicnaado example yar idin soo qabana aniga wadankayga ku dhashay ku soo koray luqadda af Soomaaliga wax ku bartay wadankayga dawladii kala dambeyn leh ayaan koray waxna bartay haddii luqadda af Soomaaliga aanan aqoon lahayn ugu horeyn shaqadii aan 12 sano ka shaqeynayo BBC-da kama shaqeeyeen maxaa yeelay wixii loogu shaqaaleysay qof Ingiriisi ku hadla lama rabin qof Soomaali ku hadla lama rabin qof Faransiis ku hadla lama rabin waxa la rabay qof af Soomaali ku hadla haddana aniga afkayga garan lahayn fursadaas ma heli lahaa waa maya hadeer oo aan ka shaqeeyo ma TV English baan ka shaqeeyo TV Soomaali aan ka shaqeeyaa luqadayda haddaan aqoon lahayn ma shaqeeyaan shaqada ma heleen marka waa noo muhiim in annaga ka sokow aan caruurta barno luqadda af Soomaaliga afkooda hooyo inaan barno si ay dhaqankooda iyo sanjigooda iyo taariikhdooda iyo wax walba ula socdaan waa aragtaan qaruumaha kale wadanka nala degan waa yari afkooda waa ku dadaalaa waana baraan annaga waxa moodaa inaan soo habacsanahay wax kalena ma aha dadnimo xumana ma haysee dadaal yarina ma haysee waxa nahay waxa bulsho waxaan noqonay meel kasta ka burburtay marka bulsho meel walba ka burburtay markaan noqotid soo dhisileed waqti badan ay kugu qaadanaysaa hasaahate inaan dadaalno afka hooyo ilmaha inaan ku barbaarino barno guriga markaan joogno hadda waa ujeeda inta horteen fadhida hooyooyin u badannahay hooyooyin maadaama aan u badanna aabayaashuna waa nala joogaan
in aan caruurta aan dhahno hooyo macaan qayr allaha ku siiye banaanka markaa joogto ku hadal ingiliishka laakiin markaan guriga joogno aan Soomaali ku wada hadalno si haddana fanni weey oo caruurtu jecel yihiin inaan afka u galansiino ina guriga dhexdiisa xataa ugu furto kuwii yaraayo soo dhashay ina u furto tartan ina tiraaho kala maanta okay caawa maxaa la fiirsanaa cartoon fiirsanayna okay cartoonkaas wuxuu dhaho dhageysta af ingiriisiga oo yaqaana moogta dhageyso Soomaalina ay ugu bedasho hooyo isku day adigoo og hooyo iyo sheeg maanta muxuu ku saabsanaa filimkaas yar caruureedka ay daawata maanta waxyaabo qaabab yar yar oo aad u dhiirigelin karnaa jirto iyo in dadka community groupska oo sida hadda maxay ahaytoon qolya gabdhaha halkan la fadhiyo iyo idinka qaarkiin oo kaleeto xataa hadaan leeyahay abaabulina anaga is abaabulno oo caruurta u qabana tartano sheeko qoraal iyo wax noocaas oo kala ah ama xataa haduu cunuga qoraalka ku adagay akhriska inuu cunuga af Soomaali ku hadlo oo kale kadisko yar iyo waxa jira qarash badan aan ku baxaynin nagana kaafiyo waajibkiina gudano hadalka ma ku dheeraanayo maadaama waqti nahaayo waxaan idinku baraarujinaa buugaagtaasna inaad caruurtii u iibsataan oo u gadataan wax badan ma joogaan qiimo badanna kuma fadhiyaan caruurtina waa u baahan yihiin annagana waa u baahannahay war wax kale iska daaya waxaan arkay dad waaweyn oo Soomaali ah isku aqoon jirno hadda markay inta imaadeen af Soomaaliga aan sidii hore loogu ugu hadli jiro ay ugu hadlaynin ma garan karo inay ka tahay isyaal oo afkiyaan Soomaaliga waa ka imid marka waxaan rabaan ku hadlaa amal inay iska tahay iyo inay dhab ka tahaba ma garan karo marka annaga naftirkeenaba baxar ku jirna hadii aanan maaragtay afka aanan ku adkaysan marka qaar anigaas af Soomaali ku shaqeeyo waxa soo marta kelmada aan raadiyo horta kaarkaas maxaa la dhahay horta kaas af Soomaali maxaa lagu dhahay maanta oo raad wax kalena ma ahana waa qurba joognimada waay afkiina aan ku hadalna waa rabnaa marka annagana kuwa waaweyn aan gadano caruurtan kuwa yar aan u gadno u akhrino xilna aan iska saarno wax kale iska daaye xataa ina ilaahay caabudid waa ku sahlanaanaysa luqadaada marka ku caabudayso hada aniga ingiriis ilaahay ku tuug hadii la yiraahdo iyo hadii afkaaga ku tuug la yiraahdo ay kala sahlan tahay afkaaga ku tuug hadii la dhaho wax walba ayaa baahay subhanahu wa ta'ala ka bari kara laakiin ingiriis ku gabagabay la yiraahdo maanta dhan gaja iyo waxa laga yaabaa kelmad qalad ama mid maarata laqwi ugu noqoto inaan dhaha dhici karto marka saaxiibayaal ilaahay khayr haydan siiye afka caruurta barno annagana afka ku dadaalno maxay ahayd gurigan ilmaha guriga weesha ugu muhiimsan waa guriga waa meesha ugu muhiimsan aniga hadda kor darbiga ugu qoray albaabka hadda ka soo gashin ingiriis kuma hadli kartiin marka dambe waxay dhan hooyo racist ah aniga racist ma yahay laakiin waxaan rabaa af Soomaaligan ina si fiican u baratiin ayeeyo hooyada oo joogtana inay idin fahamto maanta dad af ingiriis isku lahadashin iyada waxay noqonay hurdaaba qabaysaba waxba ma oga anina waa idin ka maqanaa shaqaan ku maqanaa yaa badarka idin karihayaan dhahay marka oo cuntada idin siinaayo idin gooy hadii ayeeyaba idinka ba afka ku kala go'diin marka aan ku dadaalno ilmaha yarka oo aan dhalno ilaahay khayraasi ilaahayna si wanaagsan noogu barbaariye inaan afkii barno annagana naftirkeena aan buugta akhrisano maxaa yeelay akhriska damoor afkaaga akhrisato adiga naftirkaaga wuxuu ku xusuusinayaa muhiimada afkaaga adiga weynaa naftirkeena exercise u baahan ba ilmihi ka sokow waana mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meesha noo furantahay السلام عليكم وأنا دي سلامي آمنة وما سنتهاي ودبهانتي سكلي لابان وجمعت عليا سودوينتينا بريستول وانا تعلي سيسان وحرجينا يا إنا نقصل لابان دونه طبعاً كي السنة اللي صار عفي وحن شغلت أبناء السعودال وحن بارتان كسميني ضدك الصومالي ده هل حنون وأن دريمي بان دواء رادني وحنو قاعدي دبت ugu badan oo Soomaalida nolosha ka hortaagani inay tahay faqri burburka qoyska faqri baa keenaya ilmo xumaada hadda aragtay faqri way gasal ku haysaa burburka Soomaaliya faqri oo qiimtiisa badan sal ku haya siyaasadda lagu waashay faqri bay sal ku haysaa faqriguna wuxuu kamid yahay waxyaabaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahay ka magan galay اللهم إني أعوذ بك من الفقر وحن أجادي ضدك قاركي إني حشان فقرية بالكور بارين تاس فقره إنه تشويسي هبان أجادي ضدك قار بارحبا إني فقر أهذان أرين تام صورن كرتان
إلهي وحو قرآن كيري وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قفك بني آدم كاهي نولش وحو كليه انتو راديو قفكي وحوين رادية وحوين بوهلا قفكي أن وحبا رادن وحبا مهلا وقاعدة ربانية ونوله دن خصيصة الدونك دن خصيصة قال إيا مسلم بدو إيا عدان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قفكي وحوين رادية وحوين بوهلا قفكي وحن رادية وحن بوهلا قفكي ميل دحات رادية ميل دحات بوهلا وحاجة حكمة ترى هذا قفكي كتلا إنه ضيح قاره qofkii ku talagalay inuu madaxiisa korkiisa gaaro inuu sawirigi gaarin baa la arkaa laakiin qofkii ku talagalay inuu dayax gaaro meel laakiin meel fog buu gaaraya mid kamida jirooyinka ku dhacday Soomaalida ambitionkii hamigoodii oo dhan baa wuxuu noqday ever noqday dadku waxay ku qanacsan yihiin wax yar oo liita faqri benefit inay qaataan iyo cayr inay qaataan bay ku qanacsan yihiin waxaan marka anigu timekayga iyo energy-ga galiyay mee Zainab khayr Allah si ay galisay luqadda Soomaaliga ee ilmiheen wax baran lahaayeen anigu waxaan waqtigayga energy-ga galiyay si dadkan uga baxaan faqriga waxaan darsay dadkiina ka soo horeeyay oo yimaada wadamadan qurbaha oo ay kamid yihiin Asiaanku generation-ki kawaad inagoo kala ahaa faqriga waxay kaga baxeen ganacsi iyagoo ka wax barasho liita ina ka luqad liita waxay faqriga kaga baxeen waa ganacsigii wuxuu noqday hadda aqoon marka buuga koowaad aan jeclahay inaan idin la wadaago waa buug ku saabsan furaha ganacsiga dadka qaarkiis hadda waxay ugu yaraan furaha nolosha waa buugan rajaynayo qofkii akhriya inuu jaakada faqriga tuuri doono biidnillah ujeedadu waa inuu qofka galiyo himilo cusub iyo ididiilo nololeed qofku wuxuu awood u siinayaa inuu wax kasta u arko oo ka dhaxarki karo fikrad ganacsi joornaalka akhriyaysid TV-ga daawanaysid magaalada dhexmaraysid waxa ku soo dhacaya marba fikrada ganacsi meesha dadkeenu isku daydaan ganacsiga Soomaaliya inta badan koboc ma sameeyo fashilkiisu waa badan yahay qof kasta aad aragtid wuu cabanaya wuxuu leeyahay wadaada ay yimiyo xogaagan haysta iga furta waxay dheer mashruuc baan ku sameeynaynaa wixii la isma weydiin asbaabta keenaysa waxa weeye qofkii ma laha wax uu ku karto ganacsigaana ma shaqayn doono ama ma shaqayn doono fikradda lagu keenayo ma tahay fikrad mira dhalin doonta mise ma noqon doonto waa buug qofka siinaya awood oo fikrad kasto ganacsi ku miisaami karo horta adaa awood u yeelanaya inaad fikrad ganacsi aragtid adoo gurigaaga jooga waxa dhaysaa duruuftayda hooyaana ilmahaygan korsanaya laakiin time baan hayaa 3 hours ama 4 hours maalintii ganacsi noocayaan bilaabi karaa ku habboon duruuftayda dhaqaalahan heli karo waa yar yahay ganacsi ku habboon duruuftayda ku habboon dhaqaalahayga ku habboon bii'adayda aan ka hor imaanay noloshaydii waa noocee isla markiiba waxaad awood u yeelanaysaa inaad aragtid 100 fikradood sida u horumarin lahayd ganacsi kasta u qiimeyn lahayd ayuu ku saabsan yahay haddii aad u baahatid waxa laga yaabaa dad badan inay dhahaan oo dhaqaal xagee laga keenaa diinteenu waa diin dhammaystiran wuxuu ka hadlayaa dhaqaalaha islaamka maaliyadda islaamka see lagu helaa maalgashi xalaal ah maanta meel kasta fiirisid waxa yaala lacag iyo hanti laakiin qofku wuxuu aqoon cadow u yahay maanta dadkeenu ma mudna inay deganaadaan guri counselor social housing xaafado faqriya qof kasta guri waa gadan karaa laakiin waa inuu helo furihii waa inuu fahmo nidaamka maaliyadda islaamka diinteenu waa diin dhammaystiran waa diin qofka sharaftiisa ilaalinaysa waalidku ilaa uu awood u yeesho ilaa uu xusho meeshuu degayo ilmihiisa mas'uulka ma aha maalinta awood u yeelatina xulati meesha degaysid iyo iskoolka ilmahaagu aadayaan ciid daris kula noqonaysa maalinta mustaqbalka ilmahaagu insha Allah gacantaada ku jiraan inta ka horeysa gacantaada kuma jiraan dariskaaga adigu haddaadan controlling iskoolka aadayaan aad controlling waa buu qofka baraya dhaqaalaha islaamka iyo maaliyadda islaamka ee soo shaqeeyaan laga yaabo inaan u baahti gaari inaan gato intee sibaan u gadan karaa guri baan gadanaya intee habaan u gadan karaa sharikaad baan rabaa inaan sheerkooda iyo saamigooda gato see loo gadan karaa caymis islaami aan u baahnay xalaal see loo sameyn karaa buuga saddexaad waa dadajinaya insha Allah markii aad maaliyad heshid zakada loo xisaabay zakadu waa rukni kamid ah arkaanta islaamka reer baadihi waa yaqaanaan zakada si loo xisaabay reer magaalku ma yaqaanaan dadka reer magaalka waxay dhahaan wali hanti aan zakada ka bixiyay ma gaarin laakiin ogaada inta aadan hantida yeelan ka hor waa inaad bartid zakada salaada rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilmaha ku barato 7 jir Soomaa laakiin wali waajib kuma aha la socdaya ujeedadu waa inuu ilmihi ku ababo si markuu qaangaar noqdo salaada si fiican ugu tukan karo rukni kasta oo kamid ah arkaanta islaamkuna qofku waa inuu nolosha uu barto soo Ilaahay ka rajaynayo inuu hanti yeelan doono si maalinta ay gaaro ana aakhiro loogu xisaabin saka uu dayacay
mid waxaan iri mid kamida yani faqrigu waa choice mid kamida asbaab inay faqriga ku jiraan xirfad la'aanta ganacsiga marka laga soo tago iyo hami xumada wax dadkeenii hore ku fiicnaan jireen ay nursamanadan dambe aynu yareysanay waa hogaamintu maaha siyaasad qofkii hogaamin markuu maqlo siyaasad hogaamintu waa xirfad qofkii barta insha Allah noloshiisu ay ku jirto gacantiisa hogaamintu waa himma caaliya waynu ku ducaysanaa maalin kasta ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين maxaa ku jira wajcalna lil muttaqina imaman hogaamin baynu ku ducaysanaa maalin walba laakiin hogaamintu wax la barto waxaan ogaaday hooyada ama aabaha wuxuu ka yaqaan hogaaminta noloshiisu waa ka habaysan tahay ilmihiisu waa ka toosan yahay mustaqbalkiisuna waa ka fiican kuwa kale hogaamintu waa inuu qofku saameyn ku yeesho dadka waa inuu dadka isjeclaysiiyo waa inuu dadka soo jiito thank you wuxuu iska ilaalinay inuu kaamarada horteeda maro waa saxan yahay marka insha Allah maadaama waqtigana ku yar yahay waqtigan aan siinayna su'aalaha qoraalkaygu aniga waa 4 buug ujeedadaydu waa inaynu ka baxno faqriga waa inaynu hanti yeelano meeshan Ilaahay baa qadaray inaynu nimaadno shalay gabdhaanu cabaar la joognay konsenkoodu waxa meeshan ma lagu noolaan doonaa iyo wadankii baan rabnaa in aadno iyo kalsooni kuga qabno waxaan ku yiri qofka bini aadanka Ilaahay baa qadaray meeshan yimaado maalmaha uu joogo inuu ka faa'iideysto hadii Ilaahay ku qadarna wadanka ku laabatina waa fabiha wa nicma laakiin maalmaha joogtid ka faa'iideyso aynu ganacsi yeelano aynu ka baxno ku tiirsanaanta cayrta aynu shaqooyin abuurano aynu hanti yeelano aynu fahanno nolosha mar labaad waa idin salaamaya waana mahadsantihiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة هوري لوصو شاقي مقعي محمد عبد الله عرتن waxaan isku magaalanahay Saciid Ala Shire qoraaga buugaagtanito islaamiga iyo bangiyada iyo dhaqaalaha iyo maal qabeenta ku saabsan anigu waxaan aasaasay muddana ka shaqeynayay shirkad oo ah online waxay iibisaa buugaagtanito dhan buugaagtan miiska aan u jeedin dhan iyo kuwa Saciid Ala Shire iyo kuwa Zainab kulligood waa haynaa waa online business waxaan ugu talagalnay dadkan jiilkan cusub ama dhalinyaradan soo kortay ama wadamooyinkan ku dhalatay ama ku kortay sida Zainab oo kaleeto marka aniguna aan kamid ahay dadkaas loogu talagalay inay buugaagtii ay jecleystaan ama kanoo kaleeto hadda ah novel waa book sheeko ah qiso ah waa taqaanaan dhalinyarada badanaa marka Ingiriiska akhrinayaan Harry Potter iyo sheekooyinkaas dhan aad iyo aad bay uga helaan maxaa keenay waa sheekooyin baraya sida maskaxda looga shaqaysiiyo waxaan la dhaho imaginationka ama fikradan inta dheero adduun dhan iyo dhul dhan iyo dad dhan oonan jirinin la aasaaso marka waxa weeye ciyaalkan imaginationkooda waa aad iyo aad bay u weyn yahay markay waliba gaar ahaan da yarta yihiin waxa markaasayto muhiima awalan hadii Soomaaligii la barayo Soomaali ka sokow waxa la dhahaa cilmi baarisna lagu waxeeyay jawaabteedina noqotay ciyaalka si ciyaalba uga aqli badan yihiin ama uga maskax fiican yihiin ama uga waxbarasho fiican yihiin waxa keenta sida luqadooda ay ku yihiin luqadooda hooyo hadee marka hore yaqaanaan luqad kasta ka dambaysa waa u fududahay aad iyo aad waxa la ciyaalkii luqadooda hooyo si fiican u yaqaana waxay u badan tahay averagely 6 luqadood ayagoo da'yar inay si fudud u qabtaan 6 luqadood Soomaaliana ka danahay wadad afaf badan baa nahay aad iyo aad luqadda ugu fudud inaan luqadda barano inaan luqadda la qabsano luqadda ajnabi aan anaka lahayn waxa saakenta u maleynaya inaan u maleynay horumar inaan maanta dhan Ingiriis lagu hadlo professor luqadda ku dheereeyo la dhaho Abdullah Mansour oo Italia baa wuxuu yiri maalin asoo warbixin bixinaya wuxuu yiri nimanka siyaasiyiinta wadanka jooga waxay u maleeyeen buu yiri luqadda iyo horumarkii inta Ingiriiskooda uu yahay vocabulary si Zainab sheegayso kale kaararka markay la tagtay Hargeysa lagu yiri kaararka Ingiriiska maxaa ku dhacay kaararka Ingiriiska ay waa luqadooda anagu luqad Ingiriis ma rabna inay dadkii ku sifaafaan ilaa waa la joognaa moogtahay luqadii waa easy way meel kasta laga heli marka wuxuu yiri hadii uu ninkii siyaasiga markuu kaamarada iyo mikrofoonka soo hor istaagay uu yiraahdo annaka oo ah the General Committee of Parliament markii motionkiina la soo hordhigay debate waxaan ku galnay oo si fiican debate-kaasayto loo discuss gareeyay
anigu aad iyo aad baan u ilaalinayaa inaan ereyadii oo kale keeno loo discuss gareeyay decision-keeni baa wuxuu noqday in motion-kaasayto uu abadan noqon karin mid la acceptain garan karo marka Soomaaligii adu qofkii Soomaaliga ama baadiye ka yimid haduu dhageysto wuxuu leeyahay kan Soomaali buu ku hadli masal wuxuu yahay luqad kale uu ka hadli alaa kulli xaal marka waxa muhiim ah in ciyaalkii iyo dhalinyaradii hadda soo koray anigoo kaleeta ah aniga hadda dadka Holland ku soo koray baan kamid ahay oo Ingiriiska gadaalka uga yimid hadii aan haysan lahaa ishak alaab buugaagtan ay qortay ereygii baan raadinaya waxaan wadiidanahay inaan dhaho resource buugaagta qortay sayna wakalaad haddaan heli lahaa akhristo barto Soomaali maanta vocabulary ama ereyadayda ama wuxuu ahaan lahaa wax waasica sidaa tahay laakiin la dagaalanka la galayo cunugayga 2 sano jira maanta kaararkan dhan wuu xifdiye 2 sano jira kaararkan dhan wuu xifdiyaan ka ahaan 3 kaar aad iyo aad waan ku tartanaa guriga markaan imaado isha ku soo dhiga sanduuqii ku jirtay alaabihii ku dheelayay kaararkan uu soo baxaa dhulku ku daadiya saas maxaa weeye ciyaartii baan dheelaynaa marka ciyaartu waxa weeye kaarkan ku ishaag ana soo qabanaya soo qaba aabe dayax aabe ayax aabe tufaax aabe marka sacabkaas ugu dara ma sha Allah si fiican waxay si fiican marka aad iyo aad ay muhiim u tahay marka waxaan aad iyo aad anigu shaqeeyaa marka inaan buugaagta Soomaalida qortay ama dad qoraayaasha kale sidan oo kale loo qoro hadda buuganayto gudaha daafiirisid baalalshiisa waa adag yihiin kooladii ma kala daadanayso buugaag meesha waxa ku jira hadii aad fiirisid saas u furtid ba hal mar ilaan dadku waxay jecel yihiin buuga marka akhrisanaysid kursigaaga iska fadhiid inaad saas fart u laabtido saas Soomaa buuga hadda saas dhaad baalashi kugu soo daataan buuga mar dambe dad qof kula talinaysid ma aha hadii sidoo kale buuga shelf saaran yahay ama meel saaran kale timaadid uu ku soo jiidan karin boqolaal kale oo ka tayar amal kale laga yaabaa inaad dooratid marka waxyaalahaas ay farshaxanka oo buugaagta ku saabsan galalkooda waa waxaya waa qaab oo waxbarasho aan soo maray oo education-kayga ah sida u jeedtiina de farshaxankaas iyo kaamarada iyo videogana waa shaqo isla socdon ka shaqeeyo oo aad iyo aad u isticmaalo marka barnaamijkan hadda duubayo sawiradan aan waxaynayo waa qayb kamid ah ololaynta ama marketingka macluumaadkan ay soo gudbiyay wax kale ma aha si kale tan ha u meelanina waxaan jeclahay hadalkii inaad ku dheereeyay oo businesska iyo website-ka waxa la dhahaa Allah musta'an kaararkii waa hayay gaariga ku jiraan ana idin keeni doona laakiin hadda mid aan tuso shirkadda waxa la dhahaa loox press weeye looxii caadiga ahayd quraanka ku dhigan jirnay baa sawirkiisii baa geeska saaran macnaheedu waxa weeye looxanayto waa wax aan ku soo baranay oo annakoo yar kulligan waa xasuustaa markaan Soomaaliya joognay macalinka quraanka looxii wax nagu bari jiray buu ahaa waa wax ugu horeeya ku barano nasiib darro adduunka caalamka maanta qaabkanayto wax lagu barto waa qaab aad effective u ah waa dadku waa ka dhinteen ma la isticmaalo wadanka laga isticmaalo waa Suudaan waa Soomaaliya waa qayb kamida Ethiopia may waa 3-4 wadan adduunka dhan Afrika bas ka daa 3-4 wadan bas iyo Mauritania bas laga isticmaalaa meel kale laga ma isticmaalo waana qaabka ugu fudud ciyaalka inay akhriskii xifdigii iyo qoraalkii ay ku bartaan ilaan maanta dhan haduu wax qorayo oo baranayo la rabo inuu asaga xifdiyo waa wax Arabigii aan bartay alif baada aha oo ku bartay looxa intaan 20 xogaaga sano galbeedkan joogay qurbaha aan joognay ma iloobin dugsina mar dambe uma baahnin inaan ku noqdo because waxaan garanayay qaabkaas ayto waana waxaan kula talin lahaa macallimiinta dugsiga inay aad iyo aad u wadaan qaabkaas oo kale hadii alla idmo looxpress.com meeshaas ay taan wax ku iibiyaa adduunka caalamka meel kasta u iibinaa customers badan buugaag islaamigana waa iibinaa oo Carabi ku qoran iyo English sidoo kale kuwaasna waa naga heli kartaan salaam